Sideed waxyaabood oo rag loogu soo jeedan karo jacaylna loogu abuuri karo. Waa wax iska dabiici ah qof inaad ka dhigato mid kaa hela ama soo jiidashaad u samayso. Waa waddooyinku sahlaya inaad maskaxdooda ku qabsato si tartiib ah. Wayna wanaagsan tahay qof inuu ku xiiseeyo una bogo wada sheekaysigaaga. Dhammaan waxyaabahaas muuqaalkan kaga bogo. Nambarka 1. Marnaba ha uga faaloonin noloshaada. Wiilkan waad isbarateen, dabcan waadna isku cusub tihiin. waxaad u sheegtay wax walba oo kugu saabsan weliba wiiga 1. waxaad uga warbixisay wax walba oo u sheegi kartay. Xiiso ma yeelan karo wada sheekaysigaas, laakiin qofku wuu kugu soo biiray, aadna wuxuu u xiiseynayaa inuu wax badan ka ogaado noloshaada. Markaad u sheegtana wuu deynayaa xiisaha, soo marba hadduu daayo xiisihii, dabcan xiriirintuna way yaraanaysaa. waxaase lumayaa danaynta joogtada ahayd, waayo idinkoon si fiican isku baran ayaad siisay dhammaan arrimahaaga, markaana madaxnimo ayay kaa dareemayaan. Nambar 2. Kaftan ku soo dhaweyn qofka furfurnaana u muuji. Nafteena inta badan waxay mudnaan siisaa qofka inaga qosliya inaga. Waa sababta majaajiliyaalka ay mar walba u yihiin kuwa loogu jecel yahay dadka. Waa sababta ay u yihiin kuwa waqti hore la barto. Taasuna ma ahan inay dadku ka duwan yihiin, balse waxay fahmeen habka psychologically ay dadku u jecel yihiin waxyaabaha qosolka leh. So haddii adiga ka qosol siiso qofka mar walbana waa u baahan karaa in laga qosolsiiyo loogana sheekeeyo waxyaabo faniya. Sidoo kale waxay soo jiidan kartaa qofka qalbigiisa, oo mar walba waxa uu kugu ammaani karaa qofkan waa fani. Nambar 3. Ha cabanin. Raggu way kala duwan yihiin, balse waxay ka siman yihiin inay wada necab yihiin wax isiinta iyo sheegashada xanuun daa'ima. marar qaar waxyaabaha lamaanaha kala geeya qayb ay ka noqotaa cabashada badan. Waa macquul mar ama 2 mar inaad caawinaad u baahato, laakiin mar walba ma jirto. So tani ha samayn oo markasta cabashada hoos ugu dhig, korena u soo saar inta qurxoon. Tani ayaa inta badan rag wada jecel yihiin oo cidina ma jeclo qof cabasho badan. Markaad ku guulaysato qalbigooda misna jacaylaad ka hanato, markaas wax loo baahnaan karo in la iscaawiyo, qofkuna wuu ku dareemayaa. Nambar 4. Hadal badan oo leh micno. Dumar badan waxaa lagu dhaliili karaa in hadalkoodu aanu dhaafaynba haye, maya, haa iyo qosol aadan fahmi karin halkuu ka yimaaday. soo mararkaas oo kale qofku kugu caajisayaa. haddii aadan qofka u baahnayn, si caadi ah ugu sheeg wax walba oo ha lugoyn. waxay soo habeenku ogeen in raggu ay aad u xiiseeyaan haweeneyda sheekada badan. sheekadu ma ahan mid ay nafteeda oo keliya ka hadlayso, waa inay ka hadashaa waxyaabo muhiim u ah xiriirada. kullama uu badan yahay hadalkaagu, waa kullamaad u dhowaanaysid qofka aad u baahan tahay. marna ha ka baqaylin hadalka. Nambar 5. Hadalkaagu ha ahaado mid geesinimo leh, yacni mid aan ku jirin daciifnimo iyo cabsi. waxyaabo aadan samayn karin ama aan sharaftaada wanaagsaneyn ayuu qofku ku soo bandhigtay, adigoo ka baqaya inaad weydo ama inuu kaa tago ayaad ku dhahday haye. si geesinimo ku jirto ugu caddeey, waxna ha ka baqin inaad weydo qof. Allah subxaanahu wa tacaala waxbaa kama qarsoona. qofka khayr kula doonaya, waxyaabaha uu cisiin doono waxaa ka mid ah sharaftaada. qof binu aadam aad jeclaatay, ha uga baqin inuu kaa fogaado. waxyaabaha qaar aad isleedahay ku kasbo jacaylkiisa ayaa laga yaabaa inaadba ku weydo. Nambarka 6. mar walba ha noqon qof xaadir ah. sheyga macaan ee adiga kaa maqan, hadda aadna aad ugu xiistay, marka lagu keeno muddo kadib waad ka xiisaysaa. haddana marka uu in badan kaa maqnaado, haddana waad u xiisaysaa. waa sidaasoo kale dabeecadda aadanaha. kombiyuutar ayaad u baahnayd waqtiyada ka mid ah, xiiso weyn ayuu kugu hayay. waad soo iibsatay, bisha 1 ayaad isticmaalaysay si daa'ima, haddana waxaa laga yaabaa isbuucba inaadan shidinba. markaana waxaan ku oran lahaa weligaa ha noqon qof mar walba la heli karo. sidaasna sharaftaada uma wanaagsana, qiimahaagana daciif ay ka dhigtaa. waayo qofku wuxuu ku fiican yahay markii la dhaho war hebel mee maalmahan ma aragne. nambarka 7. waa inaad daryeel gooni ah siisaa kuna dadaashaa quruxdaada. waxaad og tahay wiilashu had iyo jeer waxay aad u jecel yihiin haweeneyda daryeesha. habkaad u labisato waa qayb weyn oo ka mid ah soo jiidashada. nambarka 8. kalsoonidaada ku noolow. haweenku waxaa inta badan ay aad uga baqaan wiil inuu ka tago ama cidleeyo.
sow wiil haddooba ku jecel yahay ma doorteen inuu kaa fogaado ee adigu ha ka baqin ka saar niyaddaada hadduu kaa tago sidee ku noolaane waad jiri kartaa cabsidaas keliya waxay kugu badinaysaa fikirka ku noolow nolol waasica maahan mid ciriiriya murug niyad jab calaacal caloolxumo daciifnimadaas ay ka faa'iidaysan karaan I hope inaad wax badan ka fahantay muuqaalka intaas ayuu ku egyahay insha Allah mid ka mid la mid aan ku kulmi doono dhammaantiin farxad baan idin rajeynayaa salaamu calaykum